halkani waa alxaqiiqa. warka xiisihiisiyo xajka qarsooniyo halkaa dahsoona alxaqiiqa weeyaan xogtu meeshay. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. halkani waa alxaqiiqa. faallada barnaamijkeenu maanta waxa weeyaan Suldaan Maxamuud Guuleed oo warkiisii dhayda ka cadeeyay oo iga marxaati furay hal mar wixii aan muddada badan ka sheegay iyo qorshaha bari ay damacsan arrintaas baan doonayaa inaan isu taago. Suldaan Maxamuud Guuleed sidii maalintii hore aan idin sheegay hadalkayga ugu dambeeyay waxaan idin sheegay inay Burco ka imanayaan oo Hargeysa ay imanayaan hawlana ay wadaan. way yimaadeen xalay toole waxay fadhiyeen isaga iyo Maxamuud kale in Xaaji Xuseen iyo nin kale baa mushtari guri Hargeysa ku yaala waxaana lagu tashaday inuu Maxamuud hadlo. Maxamuud wuu caraysnaa waxaana ka muuqatay cadho badan oo sidii shirka ugu tala galay Burco ka dhacay ee ay u wadeen ilaa iyaga watay ayuu u dhici waayay waxaana hafiyey mujtamacii ballaadhnaa magacooda la sheeganayay taladoodii iyo suldaankii guud oon meeshaba la soo dhigan inuu imanayo. shirku maalintii uu bilaabmay Maxamuud Guuleed isagoo suldaanka hafraya guud ee Suldaan Cabdilaahi ayuu sheegay inuu isagu wakiil ka yahay oo aanu shirkan imanahayn oo xanuunsanayo oo ay sax tahay in loo duceeyo. ninkii uu sidaa ka sheegay inaanu shirka imanayn loo ducaynayo shirkii wuu yimi wixii Maxamuud yidhina hadal la iska yidhi ayay ahayd iyo siduu jeclaa oo aanu run ka sheegay. waa qodob. Maxamuud maanta markuu hadlayay wuxuunbuu ahaa nin firdhiye ciidankiisa oo ka hadlaya laascaanood hadalkiisu waxaanay aad iyo aad isugu dhowaayeen hadalkii xirsi cali xaaji xasan uu shirka ka jeediyey maalintaa ee islahaa bannaanka u soo bixi maayo bannaanka u soo baxay ee uu dadka ku baqalgelinayey ee uu xuduudda ku dafirayey ee uu Soomaaliland ku dafirayey ee uu taariikhda dagaalka kaga been sheegayey ee uu maxaabiista inagu toojargaraynayey ee uu lahaa waxba iska celin maysaan isu dhiiba huwan tiitol la mid ah ayuunbuu Maxamuud ku hadlay maanta. dhaqaaluhu ka hadlay oo wuxuu ku maahmaahay nin Burco ku haysta habar jeclaa in kastamarkiisii uu waayey inoomuu sheegay kastamarka wax ka iibsan jiray inay Burco ka qaxeen laascaanood u qaxeen. tusaale aad u raqiisa oo jabanoon run hayn buu ahaa. wuxuu inoo sheegay in haddii alle kuu roon yahay dagaalkaas ay Maxamed Kaahin iyo Muuse Bixi wadaan waxaanan ogeyn in nimanka afka soo duubtay oo ictisaam iyo al-shabaab oo iskarabsanaya ahi ay dadka iyagoo afka soo duubtay ku leynayeen halkaa markii dambena ay iyagu dad dagaalka iyadoo loo fadhiyo oo nabad loo fadhiyo oo xamdi u tala fadhiyo ay yiraahdeen galad dagaalka xabad afka ku rideen. hadalka Maxamuud uu iska wada hor imanayay mar wuxuu sheegay in dagaalka siyaasad looga jeedo oo dowladdu ay wado oo iyadoo ay curisay. marna wuxuu sheegay in dhulbaanta iyagoo dagaalka qabiilka bilaabeen oo geelasha qaadeen magaalooyinka gubeen. hadalkiisu ka iska wada hor imanaya ayuu ahaa wax markaan u sax ahayn dee wuu isku mulaaqmaa. Maxamuud waxa uu inoo sheegay dagaalku inuu mid siyaasiya yahay oo kii 94kii oo kale ah isagoo oo ka dhigaya in dagaalkii 94kii Maxamed Kaahin iyo Muuse Bixi ay rideen taasoo taariikhda aanu run ka sheegin. run weeyaan marka dhinac ka eegto dagaalkii 94kii dagaal siyaasiya buu ahaayo in koobani intii badnayd ee Somaliland ay doonaysay in afduubtay xamar ku shubto taasuna xurkeedu ahaa. madaxweynihii dalka haysto markaa qalanbaawgiisii inagu siyaasi sanaa ahaa ayaa dalka maamulayeen Kaahin iyo Bixi maamulayeen. isaguna in badan buu ku dadaalay nabad iyo ergada oo goob joog baan u ahayn markuu ergeynayay war waxaa doontaa warqadda ku soo qortay buu yidhi markaasaan ku qorano oo haddana markuu aqbalay aanu diidnay oo taariikh dhacday
inaan orgada diidnay dagaalkii siyaasadda 94kii waa lagu kala adkaaday siyaasiyiintii dagaalkana geliyeyna waa kuwii ka badheedhay wixii ay u dagaalameen ee BBC ka hadlayay Soomaaliland oo ka noqonay ee xamar ka degay ee xilalka ka qabtay wasiirada iyo madaxweyne ku-xigeenyaasha ka noqday madaxweyne ku-xigeenada ee anaga cidlan dhargay intii dagaal la geliyeen dagaalkii muddada reerka kaliya watay iyo Soomaalilandtii kale dee waa lagu kala adkaaday oo nimankii siyaasiyiinta ah inta kala doonayna xamar geeyaan waa lagaga adkaaday dagaalkii siyaasaddiiba markaas aanu ka furanay awrkayagii oo aanu shuruud la'aan isku dhiibnay sidaasuu dagaalku ahaa kan maantana waa kii aad buu ugu eegi dagaalka ictisaam iyo Soomaaliland nacayb oo dhan ayaa isu kaashaday iyagoo marna qabiila marna xisbiya marba nooc ah markii la isu kaashadayna dagaalka cidda fududeysay ee Soomaaliland fadhiday xisbiga wadani bay ahayd xisbiga wadani ninkii ugu sarreeyay raggii ugu sarreeyay ee gobolka ka soo jeedina ninkii sidii siyaasiyiinta xamar ka degtay ee bareedhay isaguna huwan ka degay ayuu noqday khaliif buu ahaa sidaasuu dagaalku ahaa kan 94kiina maxamuud oo ka mid baad ahayd oo intiina la dagaalamisay baad ka mid ahayd ee Soomaaliland iyo reer Baystilay marka run baad ka sheegtay laakiin taariikhda sidaad jeceshahay baad u dhigaysay ee aan saxda ahayn ama aan runta ahayn taasi waa ta hadalkaagu boqolkiiba 99 wuxuu ahaa intii anigu aan maalin walba kaa sheegayay ayaad iga markhaati furtay waxaana tahay nimanka hoggaanka dhaqanka ay ku darsadeen ururka ictisaam eed ka mid taho keligaana maaha way badan yihin dadka inta ku ogina way ku ogtahay inta aan ku ogeyna waa u sheegayna annagoon ceeb iyo aflagaada midna aan nagaga kaymanay ninkii idinku weynaa ictisaamka burco jooga ee idin xidhiidhinayey laascaanood iyo jigjiga iyo muqdisho iyo nairobi doctor faysal ninka la baxay ee ogaadeen buu ahaa maalintii ugu horreysay markaanu sheegnay uu dhuuntay qarsoodiyoon dalka ka baxay oo uu ka maqan yahay haddii waxaanu sheegaynaa ay been yihiin muu dhuunteen uu isdifaaci la wuxuu ogyahay haddii loo yeedho su'aal la weydiiyo inuu lagu heli la caddaymo badan taasi waay baanu u baxsaday adigu maad baxsanay dhufayska waxaad ka dhigatay saldanad adigoo urur sarkaal sare oo ictisaam ah intii aan ku ogeyn horaanu kugu sheegnay annagoon ku dulmayn oon kaa been abuurinayn laakiin maanta inaad sheegto oo adigu mambarka aad timaado aad baan ugu faraxsanay because in badanoo inaanu ku dulmayno ama aanu ku necebnay ama aanu ku xaasidayno ama aanu kaa been abuuranayno u haysatay ayaad dhayda ka caddaysay ayaad maanta u sheegtay wixii aanu kaa sheegaynay inay sax ahaayeen waxaad tidhi waxaad ka hadashay dekada qalalan dekadaha qalalan waxay ku yaaleen Soomaaliland oo waa lagu baraarayo ilaa tukaraq bay ku yaaleen waa ganacsigu socday yaa xidhay ictisaam iyo Soomaaliland nacayb iyo intaa maanta aad la fikirka tahay ayaa xidhay waxaad tidhi waddaa lay quuri waaye cali mareexaan oo in adeerkaaya oo suldaan aad u tahay ayaa iyana markhaatiga kugu furay oo sheegay inaan waxba ka jirin waxa aad sheegayso ee aad doonayso inaad waxaan jirin dadka kaga hor keento dalkoodii dowladdooda adigoo doonaya inay fardhiyeen ku taageeraan dagaalkiisa oo ay xagga kale ka soo jeestaan waxaan leeyahay dowladda Soomaaliland iyo habar jeclaba war haysu bareedho runta la isu sheego yaan been lagula kala warwareegin ragga deegaanka ka soo jeeda ee ay haybta wadaagaan suldaan maxamuud iyo ragga kale la socda kuwaynu istilaynaba waxaan leeyahay wartay isu bareedha magacii reerka iyo ayaa lagu dagaalamaya oo laynagula dagaalamaya dee isu bareedhoo garnaqsada oo yaan la isu dhuumanin ayaan leeyahay waxa u qorshaysan ee kale ayaan u gelayaa saaka nimay xirsi aad isugu dhow yihiin marka raaga laga tago oo jifo hoose yihiin
oo la yidhaha xuseen axmed qabiile oo uu xirsi u soo wakiishay burco iyo odayaasha reer burco ayaa saaka laga qaybinayay maalintii hore ninkan waan sheego qorligud buu tago ciidanka axmed faarax inuu kala jabiyaa buu doonayo balle calan baan idin geenayaa iyo waxbuu la tago maalintaa markaan sheegana waa waqtii fashilantay saakana ninkii ku qayliyay anigu ahaa waa la kala yaacay saaka dowladduna markaasi ogaatay waxaan leeyahay waa inaa ka hor ogaaday oo waa lai joogaa meesha aniga kuwa ugu dhow dhow baa ii jooga ee iyaga ugu dhow dhow saaka daala hotel bay isugu yimaadeen oo way kala mariiqiyeen oo maca isagii baa baxsaday berrise waxa u qorshaysan inay taageeraan hadalkaa maxamuud guuleed lacag baana lagu faraqay maxamuud guuleed iyo xirsi cali xaaji xasan iyo ina dowdarkii inaga baxsaday gudoomiyaha baarlamanka ahaa iyo nimankaa garaadada ee halkaa jooga iyo nimankaa dhammaantood waa niman khadka isugu jira oo mar walba inta waxay kusoo watashadaan la yimaado golaha maxamuud ninkii mar walba huwanta joogta buuhoodle iyo odayaasha buuhoodle jooga iyo kuwii lascalo jooga ka hadlinayay bolhaas annana waa hadlayna dina soo hadla way sogi niman is og waxba u sheeganin weeyaan maxaa looga idinka baahan yahay haddaba dowladda iyo wasaaradda arrimaha gudaha waxaa looga baahan yahay war nimankan dowladda ka buuxow deegaankiinni baa nin ku xayiran london iyo ingiriis carra ingiriis uu farta saa ugu walaaqaya idinkoo haysta dowladnimadii awooddii dhaqaalihii oo siyaasaddana ku matalayay reerkiinni ilaa siyaasadda idinka ku matalayay sidee u dhici kartaa inaad runta isu sheegi wataan oo qaranka ku daawataan oo marna commission u noqdaan marna maxkamad u noqdaan oo ilaa masiirka ummadda ka dhaxeeya ee weyn ay ka taliyaan lax laydinka aqbali kara maaha dowladdan laga aqbali karin madaxda deegaanka ka soo jeeda hawar jalaan laga aqbali karin madaxda kale ee salaadiinta kuwan hadlaya ka badan ee dadkooda la dareenkaa waan laga aqbali karin waxaan leeyahay dib isugu noqda qoryahan aa urursanaysaan iyo dagaalkan aa urursanaysaan iyo gawaadhadina qoryaha saaraysaan waxaa ka muhiimsan inay sasaxdaan hadday sasixi weydaan tabshii gooja caddeed ku dhacdumaad ku dhaciyo ninkaas gool iska dhalin doona hadallada maa laydin leeyahay ee xersina uu idin leeyahay maxamuudna idin leeyahay waa isdhiiba oo isu dhiiba huwan iyo ictisaam باقي قران قبسنا مالنت بنا برعان قبسنا وتوس وواضح تين كانوا قبسنا يهوبون قبسنا يرساس بون قبسنا يلعب بون قبسنا waxa ka horeysa ina qaladkiisa saxdaan oo inta dawladda ku jirta ee qarankana matalaysa deegaankana dalka ku matalaysa siyaasadda ku matalaysa inay dee bareedho oo aan nagu daawan nimanka commission noo noqday ee maxkamada noo noqday ee ila heer ka gaaray والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته gesiga dhulkiisa busha uu horseeda geerida dishaay geedka habo uga faaratada umaysigu ku dhuunta dalabsada xumaanta geedkooda habo gesiga dhulkiisa busha uu horseeda geerida dishaay geedka habo uga faaratada umaysigu ku dhuunta